السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي أخياري ملكستو أتشوكتان واتسلامتهين وولالكين مصطفى عبد الرزاق أويد الله مالي وناكسن هبين وناكسن قلب وناكسن قور كستو أو وناكسن أويدي كيدي تاي مانتا waxa halkan inoogu diyaara barnaamij cusub oo la magac baxay kobcinta hab fikirkaaga barnaamijkan oo toddobaadkii laba jeer ka bixi doona koobtani waxa aynu ku soo gudbin doonaa dambiyo ama fal dambiyeedyo dhacay ama dilal ama xaditaan wax kasta amaba adiga oo ay kugu dhacday dhibaato sidii aad iskaga furdaamin lahayd ama aad uga kabsan lahayd uga bixi lahayd ayaynu ku soo gudbin doonaa halkan waayahay waxaan halkan idinku weydiin doonaa su'aalaha qaarkood ama sheekooyinka qaarkood waa la idin xallin doonaa oo halkan lagu xallin doonaa qaarka kalena idinka ayaa assignment ahaan u qaadan doona maalinta labaad ee aynu barnaamijkaasi soo gudbinayno ay noqon doontaa maalinta aynu ka jawaabi doono cidii ka soo jawaabta haddii aad idinku soo garataana halkan ayaa laga xusi doonaa qofka soo gartay qaarkoodna waxa aad ku heli doontaan haddii Ilaahay yiraahdo abaal marino insha Allah waayahay haddaba barnaamijka aynu bilaabano sheekada ugu horeysa aynu soo qaadan doonaa nin jaamac la yiraahdo ayaa habeen saq dhexe xaaskiisii oo ay wada socdeen ku dilay gaariga dhexdiisa kadib meel cidla ah bay ahayd gabadhii gaarigii buu ka tuuray midi buu ku dilay wuu soo dhaqaaqay mididiina badda jar dheer oo badda hoosteeda ah ayuu ku tuuray waa jar dheer oo badda ka hooseyso ayuu mididii ku tuuray ninkaasi ma uusan reebin wax cadayna oo uu ka tagay haba yaraatee ma jirto mididii uu ku dilay walaa fingerprint waxa laale waxa uu ka tagay ma jirto ninkaas cadayn oo dhan wuu tirtiray gurigiisii buu iska tagay gabadhiisina cilada waa ka ku tuuray iyadoo meeyda kadib dhowr saacadood ka bacdi waxa soo wacay booliskii waxay u sheegeen jaamacow xaaskaagii oo meeyda ah ayaa la helay sida ugu dhaqsaha badan la waa inaad ku tibaadaa goobtii uu dilku ka dhacay waan ku sugaynaa ninkii jaamac isagoo taxadir sameynaya ayuu gaarigiisa iska soo koray kadibna waxa uu yimid goobtii uu dilku ka dhacay isla markiiba ninkii booliska ahaa waxa uu ku qabtay baaskooladii waxaanu u sheegay inuu yahay isagu dilaaga sidaana uu ku xidhan yahay haddaba waxa la idinka doonayaa muddo 10 sakiina baad haysataan ku dul fikira sida uu dilaaga ku ogaaday ninka booliska ah ayaa idinka baahan yahay come on hadda inoo bilaabantay waayahay waxaan rajaynayaa inaad haysaan jawaabtu waxay noqonaysaa ninka dilaaga ah ee xaaskiisa dilay ninka booliska ah soo wacay uma uusan sheegin boolisku meesha uu dilku ka dhacay kaliya waxa uu sheegay inuu sida ugu dhaqsaha badan ku yimaado goobta isagina waxa uu iskeenay meeshii uu dilku ka dhacay kaliya halkan waxa ogaan karawn qofka dambiga geystay marka saas ayuu ku ogaaday inuu dambiilihii yahay maadaama uu goobtii yimiday isagoo aan loo sheegin goobta uu dilku ka dhacay sheekadaasi saas ayay ku xidhan tahay sheekada labaad waxa weeyaan nin kabtan ah oo doon watay baa waxa uu damcay bal inuu soo yara meedho sal ajligeed waxa uu miiskiisa kaga dul tagay saacad dahab ah iyo gacantii oo diamond ka samaysan markii uu meedhashadii ka soo noqday ee uu soo dhameystay ee uu soo noqday ayaa waxa uu arkay inay alaabtiisii maqan tahay oo la xaday waxa uu iskugu yeeray afar kamid ah shaqaalihiisii oo afartii uu uga shakiyay inay qaateen alaabtan ninkii cunto kariyaha isagu waxa uu yiri anigu waxaan ku mashquulsanaa cuntada oo waxaan noogu magaranaysaa maqnaa sidaan cuntada u soo diyaarin lahaa ninkii engineerka ana wuxuu yiri anigu waxaan ku maqnaa ku mashquulsanaa inaan soo jeegarayo generatorka gaarkii koobaad isagu waxa uu yiri niyow calankii oo waxaan arkay foorara markaa waxaan isku dayay inaan calanka sidiisa ka dhigo oo aan hagaajiyo toosiyo oo markaa aan xagga saraaban korsanaa ninkan kale ee afraadna waxa uu yiri anigu niyo waan daalanaayo waan seexday oo waan hurdayba afartaan nin
waa uu gartay ka been sheegaya ninka kabtanka ahi idinkuna waxaan rajaynayaa inaad garataan marka waxaad haysataan 10 sinkin ku yar fikira soo sheega ninka muxuu haaye beenta sheegaya muxuu haaye xadayna alaabtaasi wayna bilaabantay waayahay ninka beenta sheegaya waxa weeyaan ninka gaarka koobaad ee yiri calanka ayaan soo hagaajinayay sababtuna waxa weeye calanka Japan waa uu rogan yahay dhinac kasta oo loo rogo calanka Japan lama garto inuu rogan yahay iyo in kale sababtoo ah afarta dhinacba waa iskaga mid calaamada yar dhexda cas uu leeyahay inta kale waa iskaga mid calanka Japan marka sidaas ayaa uu ku gartay inuu ninka gaarka koobaad ah uu xaday alaabtiisii una ka qaatay sheekada saddexaad waa mid aan idinka idiin doono idinka ayaa sheegi doona waad ka soo jawaabi doontaan qofka commentiga kaga soo jawaaba ee soo garta maalinta inoogu xigta maanta hadii Ilaahay yiraahdo ee aynu sheekooyinkeena soo qaadan doono ayuu noqon doona mid aynu xusno oo aynu halkan ka sheegno qofka ku guuleystay inuu sheekadaasi soo xaliyo sheekada saddexaad aynu iska bilaabanay nin maal qabeen ah oo hantiile ah baa maalmaha kamida gurigiisa ku soo laabtay kadibna markuu gurigii galay wax yar ka bacdiba ninkii qod ayaa loo dheereeyay waa uu dhintay waa la dilay adaa lagu yeeray waxa lagu rinayo kaalayo arintan xalli saddex qof baa guriga joogay waa Rosa Jones iyo Colin Rosa waa xaaska uu jecel yahay odaygu waa xaaskiisii ugu yarayd ee uu jecel yahay Jonesna waa ninka cunto kariyaha ah Colinna waa nin cusub oo xagga beerta inuu waraabiyo oo ka shaqeeyo loogu yeedhay oo isagu in muddo yar kooban joogay waxa lagu yiri hadaba wax cadayn ah waxa lagaaga tagay kalendarkan ama taariikhdan waxa lagu goobaabay January 2deeda October 4teeda June 3deeda November 4teeda iyo maalinta shanaad ee u dambaysa oo ah August 5teeda hadaba adaa laga sugayaa jawaabta oo waafiya waxaana sheegi doontaa adiga oo ama kalendarka adeegsanaya ama maskaxdaada adeegsanaya bal qofka dilaaga uu yahay wax cadaynana waxaad haysataa kalendarka hadii Ilaahay yiraahdo maalinta ku xigtana aynu isku soo laaban doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh